Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada qaybta koobaad ee taxanaha shakhsiyaad saamayn leh. Waxaan xalqad kasta oo taxanahan ka mid ah ku soo qaadan doonaa shakhsiyaad muslimiin iyo dadyow kalaba leh kuwaas oo waqti xaadirkan dunidan saamayn ku leh. Annagoo eegayna nooca saamayneed ee ay dunida ku leeyihiin, ha ahaato mid siyaasadeed ama farsameedba. Waxaana xalqadaha u horreeya aan xoogga ku saari doonaa bariga dhexe iyo dunida kale ee islaamkaba. Inta aanan u gudagelin bariga dhexe, bal aan eegno hogaamiyaha waddankan ku yaala halka ay iska galaan qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Rajab Tayyip Erdogan waxa uu ra'iisul wasaaraha Turkiga soo ahaa 11 sannadood. Waxa uu ku guuleystay 3 doorasho oo isxigxigtay 2002, 2007 iyo 2011. Ka hor intii aan loo dooran xilka madaxweynenimo ee dalka Turkiga bishii Agoosto 2014, isagoo mar labaad xilkaas dib loogu doortay doorashadii 2018. Intii lagu guda jiray muddo xileedkiisii, Turkigu waxa uu sameeyay isbeddel la taaban karo oo dhanka dhaqaalaha iyo dastuurkaba ah, isagoo Turkigu si weyn u soo koray saaxadda siyaasadda adduunka. Madaxweynenimadiisii, Erdogan waxa uu helay 52.5 boqolkiiba doorashooyinkii 2018. Sidaa daraaddeed, waxaa laga baaqsaday in wareeg labaad loo gudbo. Tani waxay sii badisay caannimadiisa iyo ku guulaysashadiisa sanduuqyada codaynta dhowr iyo 10 sano ee u dambeeyay. Madaxweynahan intii lagu guda jiray muddo xileedkiisa, waxa uu aragtiyadiisa ku muujin jiray baraha bulshada. Waxay ahayd aragti aan la soo wada dhaweyn. Dad badan ayaana ku dhaleeceeyay iyagoo ku andacoonaya in tani ay tahay calaamad doonitaan awood dheeri ah. Markan, Rajab Tayyip Erdogan waxaa taageeradii kala laabtay xubno muhiim ah oo ka mid ahaa xisbigiisa, waxayna ku eedeeyeen inuu warbaahinta caburinayo. Afgembigii dhicisoobay Julaay 15, 2015 waxaa dhacay afgembigii fashilmay, waxaana ka dhashay 200 oo dhimasho ah. Afgembigan waxa uu horseeday raaf ballaaran maadaama Erdogan doonayay inuu gacan bir ah u adeegsado dhammaan dadkii ku lug lahaa. Erdogan waxa uu afgembigaas ku eedeeyay Fethullah Gulen, waxaana tan ka dhashay in iyana cagta la mariyo mu'asasooyinkii uu gacanta ku hayay Gulen iyo dadkii taageerayayba. Qiyaastii in ka badan 160,000 oo shaqaale dawladeed ah kana howlgelayay waaxyo kala duwan ayaa shaqada laga eriyay. Kala badh dadkaasi waxaa laga eriyay waaxda waxbarashada. Sidoo kale 50,000 oo qof ayaa xabsiga loo taxaabay. Tiradani waa mid sii kordhaysa. Qof kasta oo lug ku yeesha falkaasna waxa uu noqonayaa mid tirada lagu sii buuxiyo. Xidhiidhka dunida. Muddo xileedka Erdogan, Turkigu waxa uu uga faa'iidaystay inuu xoogga saaro wanaajinta xidhiidhka kala dhexeeya 7 dal ee ay deriska yihiin, gaar ahaan Griiga iyo sidoo kale wadamada xuduudaha la leh Badda Madow oo ah marin ganacsiyeed muhiim ah. Turkigu waxa uu haatan 45 boqolkiiba badeecadiisa u dhoofiyaa wadamada Yurub. Sidoo kale waxa uu haatan horumarin ku wadaa xidhiidhka ganacsi ee kala dhexeeya wadamada kale ee caalamka, isagoo dardar gelinaya maalgashiga. Waana tan keentay in Turkigu Afrika ka hirgeliyo 20 safaaradood iyo qunsuliyadood oo cusub. Xilligii Erdogan uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka Turkiga, waxaa aad loogu xasuustaa booqashadiisii Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, sanadkii 2011. Xilligaa dalku waxa uu wajahayay xaalad qalafsan oo abaareed. Rajab Tayyip Erdogan waxa uu noqday madaxweynihii u horreeyay ee aan Afrikaan ahayn oo yimaada Soomaaliya muddo ka badan 20 sannadood. Kadib dhicitaankii xukuumaddii Siyaad Barre, Erdogan waxa uu xilligaa Soomaaliya siiyey kaalmo caawimaad si dalku uga baxo abaarta. Waxaa xilligaa laga qaaday muuqaallo iyo sawirro muujinaya isaga oo booqanaya dadkii ku barakacay abaarta. Waxaa aad loogu xasuustaa sawir caan baxay ee Erdogan oo laabta ku haya dhunkanayana cunug Soomaaliyeed oo tabaalaysan. Julaay 2015, Turkigu waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Daacish kadib heshiis dhex maray iyaga iyo Mareykanka.
waxaana isla markiiba xigtay bambayn goobo ku yaala Ciraaq iyo Suuriya, kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen xarumo PKK ay leedahay, waana tan keentay in mas'uuliyiin PKK iyo Maraykan ahba ay ku dhaleeceeyeen Turkiga siyaasad laba wajiilayn ah. Waxaase xusid mudan in Turkigu la dagaalanka Daacish uu uga faa'iidaystay cagmarinta iyo baabi'inta goob walba oo la tuhunsan yahay in PKK ay degan tahay. Waxaanu weli ku guda jirnaa muddaxileedkii Erdogan. Dhanka kale, xiriirka Turkiga iyo Maraykanka waxaa soo kala dhex galay mugdi kadib markii Turkigu uu damcay inuu Ruushka ka soo gato gantaalada difaaca ee S-400. Maraykanku waxa uu uga jawaabay dib u dhigistii qorshihii Turkiga ee uu Maraykanka kaga helayay diyaaradaha F-35 jet. Turkigu waxa uu taa beddelkeeda uu Ruushka ka codsaday helitaanka diyaaradaha Su-35 iyo Su-57, waana laga aqbalay. Rajab Tayyip Erdogan waxa uu dib u hantay hogaaminta xisbigiisa AKP 2017, waxaana la filayay inay sii socoto guulihiisii iska soo dabadhacayay oo uu xisbigiisu guul ka soo hooyo doorashooyinkii lookalka ahaa ee 2019. Wakhtigan, xisbiga AKP waxa uu lumiyay kusoo bixitaankii la filayay ee magaalada Istanbul iyo 5 magaalo oo kale, kuwaas oo saameyn weyn lahaa. Xukuumadda Turkigu waxay wakhtigan dalbatay in doorashadii Istanbul dib loogu celiyo. La halganka dhaqaalaha, eedeymo, hagardaamo iyo caqabado badan ayaa waqti xaadirkan wajahaysa xukuumadda Rajab Tayyip Erdogan.